بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو عبد الفتاح عادل. عبد الفتاح قدوي بدتك يقانا ما تعرف وحا أسو استاذي إن وحير عن دور قدر عن تلمامها دو الله ود اليرانه marka ugu horeysa qodobka ugu horeysa aan ku furto waxaan noqon doonaa YouTube-kan indhaha shacabka. YouTube-kan indhaha shacabka ah. Indhaha shacabka waa maalintii ugu horeysay oo aan ka soo noqday. Intii hore waxaa kaliya yar inoo soo gelin jiray wiilkayga oo la yiraahdo Maxamed Cabdifataax Aadan. الشيخ محمد بيدت قار إياه قانان وحنا سو بليان كا تفسير كيفية يا وصو بالعرس ولجدد الله فري يوتيوب كان عندها شعبك وحرمنا إن ونقضوا متك حلا مجا وكوستيسين عندها شعبك معناها قفل بو المقدس الصومالي كوهلا ويا قانا أم فهم كرا indhaha shacabka waxa ay arkayaan dadweynaha Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxa ay arkayaan oo dhan ama haddii wax yihiin ama haddii yihiin wax wanaagsan baa la rabaa inuu ka hadlo YouTube-kan indhaha shacabka sidaa daraadeed ayaa magaca loo doortay ilaa hadda waxa lagu jiraa diyaar garow si rasmi ah barnaamijkii loogu talagalay looma bilaabin markii uu helo kooramka loogu talagalay ayaa la bilaabi doonaa si toos ah mideeda kale YouTube-kan ma noqon doono mid wax walba iska sheeg waxaynu ka wada wadnaa inuu ka dheregsanay dad badan ee YouTube-yada u soo fariistaan inay lacag ka helaan ama run ha sheegaan ama been ha sheegaan ayaga oo ujeedkoodu uu yahay sidii lacag ku helaayeen annagu waxaanu nahay dad islaam ah waxaynu ognahay qofka waxa uu helayo oo Ilaahay ku irsaaqayo ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan wuxuu helayaa wixii loo qoray asagoo caloosha ku jira marka maadaama ay ku qoran yihiin wixii aad heli lahayd adigoo xalaal ku heli kara inaad xaaraan ku doonto waa wax subxaanallah marka annaga ma noqon doono dadka maalin walba YouTube-ka soo taagan ee shimbirtii dhuustaba tilmaama waxaanu ka hadli doonaa wixii aynu dan moodno oo aan dan Soomaaliyeed moodno ayadoon cidna lagu jaa'ifaynin cidna lagu dhibayn cidna lagu maaragtay mucaaradayn waxaan rabnaa inaan si toos u tilmaano indhaha shacabka Soomaaliyeed waxa ay arkayaan waxa ay yihiin halka waxaan rabaa inaan kula gudbo YouTube-ka indhaha shacabka sababtii loo sameeyay qodobka labaad waxaan rabaa inaan wax yar tilmaamo adduunka dhan waxa ka jira xanuunka la yiraahdo coronavirus dhibaatooyin aad u fara badan ayuu ku hayaa adduunka waana xanuun aynu ka wada dheregsanahay xaaladiisu heerka ay gaarsiisan tahay marka ay sidaa tahay waxaan rabaa inaan u tilmaamo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya ee la yiri maanta xanuunkii wuu gaaray anigu waxaan joogaa oo aan ka soo hadlayaa waddanka Belgium Europe ilaa iyo Mareykanka ilaa iyo Asia waxaan ka waraynaa dhibaatooyinka uu gaarsiiyay iyo heerka ayagoo haysta oo lagu tilmaamo dunida horumartay yihiin iyagoo lagu tilmaamo inay haystaan qalab casri ah inay xagga caafimaadka u horumareen baan ognahay maalin walba waxaa dhinta dhowr boqol oo qof dhowr kun oo qof baa maalin walba dhinta sidaa daraadeed ummadda Soomaaliyeed oo dad iska saboola oo dunida saddexaad ah oo aan haysan dhaqaale ku filan oo ay aafaysay colaad ilaa iyo 30 sano soo jiitamaysay maanta maxay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed qodobkaas waa qodob u baahan inaynu dul istaagno inaynu iftiimino aan rabana inaan ugu baaqo
dadka badan ee Soomaaliyeed ee YouTube-yada ama meediyaha soo fadhiista in ay si raxmad leh ula hadlaan ummadda Soomaaliyeed iyagoo tilmaamaya qaababka ay ku badbaadi lahaayeen isku safgarayn lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen qodobkaas waxaan rabaa inaan u ishaaro dadka Soomaaliyeed ee aftahanka ah ehludiinka ah ehlucilmiga ah inaan u tilmaamo in aysan ka daalin inay ummadooda u diirnaxaan kalana hadlaan arrimahaas waayo haddaan kusoo noqdo Soomaaliya gudaheeda ma rabo inaan kala qaado ama koonfur ha ahaato ama waqooyi ha ahaato ama bari ha ahaato intaasoo dhan waa ummaddii Soomaaliyeed in baa joogta maamulkii doonta iyo magacii doonta ha qaadato ummadda Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad muruqmaal ah oo xoogooda ku nool dhammaantood inta badan waxaan kaloo aan ognahay in ummadda Soomaaliyeed haddeer ay laba dabaqadood tahay adduunku meesha uu saddex dabaqadood ka yahay dabaqadii dhexe way ka baxday halkaas labada dabaqadood ee soo hartayna waxay tahay dabaqad sare iyo dabaqad hoose marka dabaqada sare waa ognahay dadka ku nool iyo qaabkii u nool yihiin waa ka wareynaa isuna tilmaamayna laakiin dadka aan rabno inaan tilmaano ama loo gurmado ama la caawiyo waxay yihiin dadka dabaqada hoose maanta ku nool iyo xanuunka coronavirus ee la yiri guryaha lagu jiro iyagu aan heli karin ama aan haysan dawlad noloshooda kafaalo qaado oo ayagu guryahooda jooga siise ayagu aan heli karin sidee bay dadkan la macaamiltamayaan xanuunka adduunka aafeeyey ee coronavirus qodobka aan rabo inaan ishaaro ummadda Soomaaliyeed u ishaaro qodobka isaga ah waayo dawladda Soomaaliyeed waxay ku dhawaaqday sidaan ka warhayno in guryaha la joogo in iskuulaadka la xiro in masaajidyada la xiro marka ugu horeysa dadku horta way inay u hoggaansanaan meel allaaliya meeshay joogaan ama Yurub ha joogaan ama Maraykan ha joogaan ama Asia meesha doonaan ha joogaan dawladdu waxyaabaha awaamiirta ay bixinayso wasaaradaheeda caafimaadka dadku way inay u hoggaansanaan taas waa qodobka labaad muxuu yahay dawladdu ayadana inay itaalkeeda ku xisaabtanto oo ay eegto dadka ninka maskiinka ah ee gaari gacanka wata ama hooyada masaakiinta ah ee yaanyada iibisa oo carruurtooda iskuulka fiiga ka bixin jiray oo cuntada ay saddexda waqti maalinkii quutaan ka bixin jireen yaanyada miiska lagu iibiyo ama dhulka lala fadhiyo ama aabbaha gaari gacanka riixa ama dekada ka soo xamaala ay ku noolaayeen markii guriga la fariisay dadka iyaga ah noloshooda sidee bay noqon kartaa dawladdu ma ka faanqaado marka waxaan rabnaa inaan tilmaano waxaan tilmaamaynaa waxa weeye sidii ayaguna isu badbaadin lahaayeen noloshoodana u doonan lahaayeen iyagu waxay isu badbaadinayaan calaamadihii la sheegay oo wasaaradaha caafimaadka ay sheegeen dadku inaysan meel isugu imaan kala fogaashihii nadaafadii inay galoofiskooda isticmaalaan inay soo xirtaan afkooda sankooda hadday muraayado helayaan ayagoo u diyaarsan in uu cadowga coronavirus waddankii joogo ayagoo u diyaarsan oo naftoodana ilaalinaya naftooda halkoodna ilaalinaya inay shaqooyinkooda u baxaan anigu middaa ishaaraya waa middaas midda kale aan rabo inaan ka hadlaa waxay tahay dadka mucaaradka ah ee dawladda ku mucaaradka ah ee aad hadda moodayso mucaaradnimadooda inay wax walbaba mucaarad ku yihiin waxaan leenahay walaalayaalow ka waantooba hadda xilli adag ayaa la galay adduunka oo dhan baa xilli adag galay waxaan u baahannahay Soomaali midaysan isku aragti ah hal mabdaa leh hal arrin ka wada duulaysa inay dadka mucaaradka dawladda ku ah doonaya musharaxiinta qaarkoodna ay yihiin doonaya ummaddan inay maamulaan oo mustaqbalka ka rabaan waa inay qayb ka qaataan sidii loo badbaadin lahaa ay maanta joojiyaan tallaabada ay dawladdu qaadayso ama caafimaad ahaan u qaadayso ama qaab kale u qaadayso ay ligta ku yihiin taa inay ka gudbaan ay ayagana la yimaadaan fikir ah
qaabkii dadkan maanta loo seefgarayn lahaa inay qayb ka noqdaan aniga waxaan ku talin lahaa in la magacaabo guddi dowladda qaybta mucaaradka ah ganacsatada culamaa udiinka aafadan sidii looga hortegi lahaa inay ka wada shaqeeyaan ayagoo midaysan hawshaan markaan ka gudubno qof walboo dee meesha awlkii hore taagna iska soo istaag ayadoo ay sumcad kuu tahay dadaalka aad ka qaadatay caawinaadda dadka taasna waxaan farayaa dadka mucaaradka ah waxaa ii haray qodobka kale waxa uu yahay ganacsatada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waa waxaad og tahay makuu sheegaa inaysan dadkooda masaakiinta ah uga faa'iidaysanin xiritaanka waddanka la xirxiray diyaaradihii hadday yihiin iyo ganacsiyadii hadday yihiin la xirxiray inaysan noloshii aysan dadka ku qaalisiin oo aysan halkaas ka raadin interest waxaa laga yaabaa dadkaad ula siman tahay xanuunka inuu adiga kugu soo hormaraa dhici karta marka waxaad mudan doonta beritoole maba ogide haddaad jaanis haysataa oo adduunka aad joogtaa xoolahanna waxay noqon doonaan lama oga marka waxaan rabaa ganacsatada soomaaliyeed inaysan uga faa'iidaysanin xanuunka dartii inaysan isu oranin dhaqaale ka sameeya maantaad jaanis haysataan dadkii masaakiinta ah ayagoo la yidhi xoogsanina guryihiina jooga adinkiina aad haddaad badeecadii aad qaali ka dhigtaan waxay noqonaysaa dhabarjab iyo maaragtay dhibaato kale aad u soo hoyeyseen ummadda soomaaliyeed wixii aad ka faa'iidaanna ma noqon doonto wax idin tara ama nolol ama waxaad ka doonaysaan aad ka heshaan ma noqon doonto taasna waxaan farayaa ganacsatada soomaaliyeed marka kilibkayga yar ee maalintii ugu horreysay ee aan soo istaagay indhaha shacabka waxaan rabaa inaan intaan ku soo ururiyo wixii aan qalday waa aniga iyo naftayda aad baan idiin salaamaya dhammaantiin meel aad joogtaan iyo sida aad ii daawanaysaan iyo saacadda idin tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu